يا طالبا جنات عدن إنها قد زينت بالروح والريحان وحد لربك إن أردت دخولها واصدح ورتل آي ذا القرآن والبر بالأبوين يوجب جنة والوصل بالأرحام والجيران أما الصلاة فهي نهر دائم يقضي على الآثام والأدران أسبغ وضوءك إن قصدت نعيمها وابذل لمالك يا أخ الإيمان واسأل إله الكون أن تحظى بها ما خاب من يرجو رضا الرحمن. الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعد. أما بعد كسر هذا حلقتين صدحات iyo muujibaat aljanna ama waxa waajib kaga dhigaya inaad jannada gasho. Waxa ka qurux badan in xadiid jannada ka hadlaya lagaga sheekeeyo oo ruuxdu halkan joogta ay aado jannada oo qalbiguna xasilo laabtuna fayoobato oo ay sharaxmato. Subhanallah. Halkan maanta waxaan noogu wadaa wax kale oo waajib kaga dhigaya in aad jannada aado. Talo muxuu yahay? Wuxuu dhahay Nabigu sallallahu alayhi wasallam Allah wuxuu leeyahay 99 magac qofka xafida ama kooba jannada ayuu galay. Walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha. Ma aha taas micnaheedu inaan intaan magacyada Ilaahay wax ku qorno, loox ku qorno, kadibna guriga meel ka mid ah saarano, ku qurxisano. Saas ma aha muhiimadu. Muhiimadu waxa weeyaan inaad qalbigaaga ku qorto oo aad xafido Ilaahayna markaas ku barido magacyadiisa wanaagsan iyo sifooyinkiisa sarsareeya. Markaad tiraahdo ya Razaaq, waanaad macnaheeda garanaysaa inuu Razaaq ku arsaaqayo. Markaad dhahdo ya Raxmaan, waanaad ogtahay inuu Raxmaanku ku naxariisanayo. Waana sababta ay dadka Allah yaqaana ee magacyadiisa ku bariya ku xusee ugu cawdaa markasta u faraxsan yihiin. waayo Allahooda ama Rabbigooda ay si wanaagsan u yaqaanaan oo ay kaaga badiyaan, waxay kaaga farxad badan yihiin. waxay oranayaan ya Wahhab iyagoo inuu Allah wax hibeeyo, markaas uu hibeynaya. waxay dhahayaan ya Mannaan, markaas uu ku manaysanaya. kama shaki qabaan, way yaqiinsan yihiin waayo Rabbigooda ay yaqaanaan. waxa aad u qurux badan inaad gacmaha Allah u horsato, kadibna magacyadiisa wanaagsan aad ku xusto oo aad ku amaanto, kadibna weydiisato waxaad rabto. intaad dhihi lahayd Allahumma ighfir li ama ilaahi dambi dhaaf, waxaad dhahdaa ya Ghaffar اغفر لي، الله دنبيض دافو إيه دنبي داف، يا رحمن ارحمني، الله نحريستو إيه نحريسو. سازا يكو قرح بدن كو أمان مركو هراء الله مقاعديسا يسفوين كيسا صرصرية كدب نوحد ربط مركز ويديسو. وانا صوابت أنو دهنو اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. محد كويدي استيلاهي مقاعدي سوون وناكسن. انت تقانين تادا نقومبا ويا سقاشين كن كلية ماهم واحد شيران مقاعد بدن وقال ليه، لكن صديق واجب وقصارا وحويان سقاشين كن انت تحفظه إنا تكدو عيسته أبا المرين تدنو وحويان. سو حبيب نوشي صلى الله عليه وسلم جنة بيننا هين صدق صاينا الله أكبر إنه الله نقلي جنة، allow noo dhaaf dambigayaga, allow noo naxariiso, allow kan noo samee. miyan ahayn? may wallahi way tahay. gacmaha kor u taagdee, waxaad sugaysaa alla bari adigu, waalidkaa u bari, muslimiinta oo dhan u bari, kuwa nool iyo kuwa dhintayba. wax ku weydiisa eebbe magacyadiisa intaad barata micnahooda adigoo yaqiinsan inuu alla yahay Wahhab oo uu ku hibeynayo wax alla waxaad ka doonto. allow nagu arsaaq macaansiga barashadaada iyo macaansiga baryadaada. aamiin. soo dhawaada mar labaad. maxaa ka qurux badan marka jannada laga sheekeeyo? wallahi qalbigu wuu xasilayaa, laabtu way degaysaa, ruuxdu way dawaafaysaa, kor jannadii bay aadaysaa adiga oo halkan jooga. bal insaanku marka jannada looga sheekeeyo sidaasuba jannada ku galaaba. waayo adduunkan dhibkiisa ayaa fara badan. marka jannada laga sheekeynayana
dhibkaasi waxaas ma jiraan. Sida awgeed isagoo halkan jooga uuba jannadii already aadayba. waxyaabaha jannada lagu galo waxaa ka mid ah inaad saaxiib wanaagsan la tahay qur'aanka. farxaddu waxay ag taallaa kuwa iyagoo adduunkan jooga ku dhex nool jannada. sidee ayuu u jiraa qof isagoo nool oonan dhimanin haddana jannadii ku dhex nool? way dhici karaysaa. wuxuuna dhahay xabiibku sallallahu calayhi wasallam, saaxiibkii qur'aanka maalinta qiyaama waa loo yeedhayaa, waxaana la dhahayaa jannada kor u fuul adiga oo tartiibinaya, ku nuuxnuuxsanaya, tajwiidinaya qur'aanka kor u bax halka ay aayadda ugu dambaysa kaaga go'do. halkaas weeyaan mansiladaada jannada ama meesha aad jannada ku leedahay booskaaga ah ee aad degayso. allahu akbar. waxay hambalyo u sugnaatay ahlul qur'aanka marka maalinta qiyaamaha uu u yimaado isagoo raba in uu u shafeeco qaado, u ergeeyo, ilaahay uga ergeeyo. ma ogtahay waxa uu raxmaanka ku dhahayo qur'aanku maalinta qiyaame isagoo u shafeeco qaadaya saaxiibkii ehelkiisii usoo jeedi jiray si ay u akhriyaan qur'aanka? kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun. waxay ahaayeen kuwo qur'aanka tartiib u akhriya oo ku nuuxnuuxsada markay akhrinayaan. wuxuu qur'aanku ku dhahayaa raxmaanka isagoo u ergeynaya saaxiibkii, ilaahayow u labisi oo labis u geli, labiskaas oo ah taaj karaamaysan ama taajkii karaamada ilaahayow u geli. markaasaa loo gelinayaa. markaasuu dhahayaa rabbiyow u ziyaadi. markaasaa loo ziyaadinayaa. markaasuu dhahayaa haddana ilaahayow ka raali noqo. markaasaa haddana ilaahay ka raali noqonaya oo isagana raali gelinaya. subxaan allah. kadibna waxaa la dhahayaa akhri si adduunka ugu akhrin jirtay, ku nuuxnuuxso tajwiidkeeda adoo la imaanaya, korna u fuul jannada halka ay kaaga go'do aayadda ugu dambaysa ayaa ah mansiladaada jannada ilaahay baan ku dhaartay waa kuwa farxad ku nool ahlul qur'aan. waxayna ku nool yihiin janno intaynan jannadii rasmiga ahayd aadin ka hor. sideed isku tihiin qur'aanka yaa mu'min ramadaanta kadib? aaway ku daaweyntii gurigaaga qur'aanka yaa ayuha almu'min almu'mina? aaway waxaa ka mid ah sababaha waajib ka dhigi inaad jannada gasho in aad qur'aanka la saaxiibto oo aad akhriso oo aad markaasna ku dhaqanto. waana sababta uu dhahay nabigu sallallahu calayhi wasallam, ahalka qur'aanku ama saaxiibka qur'aanku maalinta qiyaamaha waa maca safara. mataqaanaa safaray ku yihiin? waa malaa'igta karaamaysan. kuwaas ayuu la safanayaa maalinta qiyaame. saaxiibka qur'aanku wuxuu la mid yahay maalinta qiyaame maca safarati alkiraami albarara oo malaa'igta ah kuwa sharfan ayuu meel la soo istaagayaa. subxaan allah. farxad, xasilooni, deganaan, raaxo, nooc kasta uu wanaag yahay iyo khayr yahay, wallahi iyaga ayuu ag yaallaa. waxay u akhriyaan qur'aanka sidii alle u soo dejiyey, waxayna ugu dhaqmaa siduu alle uga gon la'aa inaynu ugu dhaqanno markuu soo dejinayay. habeen iyo dharaarna waa kuwa akhriyo oonan ka daalin. waxaan halkan u bishaaraynayaa sidoo kale oo xadiidka dhammaadkiisu ahaa kuwa qur'aanka markay akhrinayaan uu ku dhegdhego ama carabkooda culus yahay eena si fiican u keeni rabin, waxay ku dhahayaan walaalkayow ama sheekhow waxaan rabaa inaan qur'aanka akhriystaan uga mid noqdo maca safarati alkiraami albarara, inaan malaa'igta la saftaan rabaa, inaan maahir noqdaan rabaa, inaan qaari noqdo ayaan rabaa, laakiinse qur'aanka waa isla keeni laanahay. bishaaro wuxuu dhahay xabiibku sallallahu calayhi wasallam, qofka qur'aanka akhrinaya ee uu ku dhegdhegayo, ee uu ku adag yahay, carabkiisu culus yahay, ee uu ku adag yahay inuu akhriyo, ee haddana wada xaawilaya ha wado, 2 ajir ayuu leeyahay. 2 ajir ayuu qofkaasi leeyahay. xadiidkuna waa saxiix, muttafaqun calayh. yaa ahla alqur'aan, ehelkii qur'aankow, ummadii qur'aankow, u noqdo qur'aanka. wuxuu idin leeyahay fa ayna tadhabuun? xageed aadaysaan? xageed iga aadaysaan? u noqdo qur'aanka rabadaanta kadib mar kasta ku xidhnow si aad uga mid noqoto maca safarati alkiraami albarara ama malaa'igta kuwa la safta maalinta qiyaame si aad uga mid noqoto. waa haddii aad doonayso janno walaalkayga mu'minka ama walaashayda mu'minada ahi. waana sifo ka mid ah sifooyinka waajibiya in aad jannada gasho. allah waxaan weydiisanaynaa inaan ka mid noqono ahlul qur'aan. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay ahlul qur'aan hum ahlullahi wa khaasatuh. ehelka qur'aanku waa ehelka ilaahay iyo weliba kuwa gaarka khaaska u ah, VIP da u ah. allah inaga mid dhigo. asalaamu calaykum.